ogtiin xasarada ruushka ay tahay Ukraine tan ugu daran adduunka maalin walba waxa soo baxaya warar hadaba cajiib ah oo ku saabsan quwado kale oo arinta ka faa'iideysanaya Iran hadeerta waxay laf dhabar u noqotay wararka caalamka ee ka imaanaya arrimaha Ukraine iyo Ruushka waxaana la yaab noqotay in ay dawladdaas hadeerta ay ku daabashay hubkii ugu darnaa markii hore waxa la isku haystay arrimaha ama qalabka loo yaqaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn waxaase la ogaaday taliya intii uu 6 bisha October uu booqday madaxweyne ku-xigeenka dalka Iran magaalada Moscow inuu la kulmay saraakiil sare halkan heshiis la yaab leh ku soo gaaray Mohammed Mukhtar madaxweyne ku-xigeenka dalka Iran ayaa la sheegay isagoo ay weheliyaan laba sarkaal oo lagu dhaato oo ka socda golaha amniga qaranka dalkaasi loo yaqaan the Supreme National Security Council ee ka socda wadaadka wadanka ee erayga ugu dambeeya leh ayaa waxay gaadheen heshiis kaasoo ah in gantaalaha ballistic missiles loo yaqaano ee ridada dheer ee dalka Iran lagu hubeeyo lana siiyo ciidamada halganka adag ku jira ee dalkaasi Russia sidoo kale waxa la sheegay in diyaaradaha droneska ee Fatih iyo Salfaqar iyo takale loo yaqaan shahiid saddexdaba lagu baritaaray dawladda dalkaasi malaayiin dollar oo lacag ah hadaysan balaayiin bahayn bal aamsay in la kala qortay inkastoo Iran aysan arrinta diidin haddaba markii ugu horeysay ee laba sarkaal waxa ay qireen inay arrintaasi jirto laba sarkaal oo Iraaniyiin ah oo iyagu la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in ay gantaalaha ka iibinayaan isla markaana ogolaadeen gantaalaha ridada dhexe iyo kuwa cirka loo yaqaano iyaguna ay u daabulaan diyaaradaha kale iyaguna isqarxiya shahiid waxa laga wadaa diyaarad isqarxinas oo droneska ayaa iyagana geed doona ayay dheheen balse mar la weydiiyay labadan sarkaal oo iyagu magacooda diiday lana hadlayay warbaahinta Reuters ee wakaaladda ayaa yiri annaga maxaa naga galay ayuu yiri iibsaduhu meesha uu u isticmaalayo annagu waxaan nahay iibi shaqul iyo shaqaltoona ku balihin bay yiraahdeen xasarada Ukraine iyo u dhaxaysa Ruushka macnaha waxay leeyihiin annaga hubkaas waxaan ka iibinay Ruushka laakiin sida ay saasan u isticmaalana iyo soo isticmaalaysan anaga war noo yaalama waxay intaas ku dareen in markay timaado dagaalka u dhaxeeya Ukraine iyo Russia ay u arkaan in xal nabadeed lagu xaliyo oo la dhaxdhaxaadiyo lana jirsamay noqolana sida reer galbeedka ay yiraahdeen oo iyagu Ukraine raacay bay dhaheen haddaba afayeenka aqalka Kremlinka Dmitry Peskov ayaa waxa uu isaguna diiday inuu sheego xogta arrintaas ku saabsan wariye ayaa weydiiyay imisa diyaaradood oo drones iyo hub kale ay ka soo iibsateen Iran xogta ma hayo buu ku yiri wixii xog military ciidan iyo rasaas iyo agaba wasaaradda gaashaandhigga u tag oo weydii ayuu ku yiri wariyihii markaas su'aasha weydiinay wuxuu yiri ilaa hadeerta waxaan ku sheegi karaa annaga aan ognahay siyaasadda aqalka astaala waxa weeye ayuu yiri in hubka localka ah ee anagu aan soo bisano la isticmaalo hase yeeshee safiirka Ukraine u fadhiya qaramada midoobay ayaa ku eediyay Iran in ay go'aansatay inay diyaarado nooca qaarkood yihiin kamikaze nooca shahiid nooca Salfaqar iyo dhamaantood gantaalo kale ay ku daabulas halkaas isagoo golaha ammaanka qaramada midoobay warbixin siinay ayuu sheegay in Iran ku xadgudubtay cunaqabatayntii hubka saarneed iyo sidoo kale in ay iibiso hubka Sergey Kisisia ayaa waxa uu sheegay in Ukraine ay ka cadhaysan tahay dhaqdhaqaaqyadan ku tilmaamay inay hadda bilaabaan balse 2016 ay bilowday laakiin Kremlin wararka ka imaanaya sheegay in halkaas ay gaadheen saraakiisha ururka ciidanka lagu dhaatay dalka Iran ee loo yaqaan the Islamic Revolutionary Guards Corps ama IRGC kuwaasoo la sheegay in aad ay u abaabulayeen doonayaan inay tababar heer sare ay siiyaan ciidamada dhigooda ah dalkaasi Russia waba cajiib sida marka loo eego marka Iran waxay noqotay quwad aan la dhayalsan karin waxayna xasradan qayb ka noqotay waayo waxay bixinaysaa tababar waxay bixinaysaa hub waxay bixinaysaa gantaalo heer sare diyaaradaha bixinaysaa waxay bixinaysaa information gathering bay ka shaqeynaysaa inay warwareyn iyo taageerada dhinaca muxaafaraadka qayb ka noqoto waxayna noqotay markaasi meel loo soo hub doonto loo soo sablay doonto Iran waxay ka mid tahay wadamada adduunka ee diyaaradaha droneska iyo hubka ballistic missiles kale ee ridada dheer ugu badan haysta hada waa adduunka oo dhan including Mareykanka xitaa ku jiro bay kamid tahay wadamada macnaha waxaan ka hadlayaa Mareykanka kama sareyso laakiin waxaan ka hadlayaa wadamada ugu sareeya bay ku jirtaa Iran ayadana wali waxa sii socda mudaharaadada iyo joojinta wax kasta oo la isku dayo in arrintaas lagu yareeyo balse waxa kale oo dhinac socda war kasta oo ku saabsan in la faafiyo ayadana dhaqdhaqaaqyo noocaas ay dhaceen waxa la soo saaray gobol u ciyaarisay Iran ciyaarta tafid meesha la claim gareeyo laftafo ee buuraha marka la tafayo waa ciyaar caalamka ka jirta taasoo koonfurta Korea ka dhacay gabadhaas oo la yiraahdo Elnas Rakabi oo 33 jir ayaa markay tafasay buur kamid ah buurihii lagu tartamayay waxa ka doolay xijaabkeedii iyadoo bil xijaab la arko kadibna waxa la sheegay inay jabisay sharciga dalka Iran ayay u safaneed qaranka ayay u safaneed sidareed lama ogola waana mamnuuc Iran in xijaab la'aan gabadh ay noqoto markay banaanka joogto balse waxa gabadhaas barta Instagram-ka ay ku soo qortay inay arrintaas ku dhacday si shil ah oo waxay tiri markaan meesha fuulayay iyo xijaabku iga dhacay si markaas shil ah ama hal haleer ah
wayna ka raali gelisay cid kastoo dhibsatay inay jirkeeda la arko waxaana arintaasi ay ka dhawaaqday barteeda Telegramka markii meesha tafasay ay saas sheegtay balse qaar kamid ah dadka mucaarada dawladda ayaa sheegay in lagu khasbay inay raali gelin bixiso oo ay ku khasbantahay inay saas sameeyso kalena ay xabsi geliso qarax kale ayaa isaguna wuxuu ka dhacay mid kamid ah xarumihii ayaguna qaadi jiray shidaalka ee geejiray wadanka Yurub ugu dhaqaalaha roona ee hadeerta laakiinse baxadagayay dalka Jarmalka kaasoo kasoo qaadi jiray wadanka Russia ee la halakeenayo arrintan ayaa u eg mid kale oo muujinaysa ayaa lin masiibo kale wadamadaas ku soo jiijiilay si kastaba ha noqotee qaraxan ayay ku sheegeen mas'uuliyiintu inay noqon karto mid ola kaca oo dawladda Russia ay doonayso inay shidaalka kaga goyso wadamada reer galbeedka hay'adaha qaramada midoobay ayaa waxay isku dadal marka lagu dhawaaqeen in Soomaaliya ay ka dhacday isla markaana ay wajahayso ay yiraahdeen macluushii ugu daray nus qarni tan iyo sanadkii 1975 markii ay dabadheer dabaartii la oran jiray xumaad wadanka ka kacday afayaan u hadlay hay'adda United Nations Children's Fund oo UNICEF garab ogtihiin ayaa waxa uu shirka idoo qabtay oo ku sheegay in wadanka ku yaala geeska Afrika buuri uu wajahayo wuxuu ugu yeeray dhibaato weyn iyo saxariir ka daran kii 2011 oo ka dhigan ayuu yiri in nus qarni wadanku uu wajahayo dhibaato aad weyn isagoo sheegay in bishii Agoosto kaliya 44 oo caruura loo dhigay isbitaallo kadib markii nafaqo darro soo wajahday taasoo ka dhigan ayuu yiri inay 11 jibaaratay dhimashadii iyo kuwa u dhimanaya iyagoo wuxuu shuban biyoodka iyo xanuunada kale ay kamid tahay jadeecada sodalka wadhigay waxa uu sheegay in taas macnaheedu ay tahay in halkii daqiiqada hal cunug uu geeriyoonayo ama uu u baahanayo ayuu nafaqo isagoo intaas ku daray in ay jiraan dad gaaraya 7.8 milyan ku dhawaad 8 milyan oo qof oo kala badh ka badan dadka wadanka ku dhaqan ay u baahan yihiin wuxuu sheegay in roobkii la waayay 4 jeer oo isku xigta sayeshe wararka warfadhiya sida madax banaan u heesay sheegay in wadanka Soomaaliya inta badan roobku ay ka da'een roob badan ay ka da'een isla markaana meel badan ay barwaaqoobeen ayadoo la rabo in Ilaahay looga mahad celiyo isla markaana waxa sidoo kale la yaab noqotay in dawladda Soomaaliyeed aysan ilaa hadeerto aysan si weyn uga hadal arrimahan aysan ka codsan hay'adahan inay joojiyaan in iyagu afka wadanka ku hadlaan oo ay waxay rabaan inay sheegaan halkan nagala socotaan wararka wacala dhinaca dowladda Sweden xukuumadeedii midig dhexe ayaa ugu dambeyntii waxay ku dhawaaqday dawladeeda wadaaga golaha wasiirada 13 ka kooban ayaa la qaybsaday ayadoo xisbiga xiyir socodka midig dhexe qaatay 6 halka xisbiga Christian Democrats uu qaatay 5 isaga iyo xisbiga kale liberalka dhanka kalena ra'iisul wadankaas ayaa sheegay in mowqifkiisu cad yahay marka ay timaado gaashaanbuurta NATO arinta Ruushka iyo Ukraine iyo Shiina iyo Taiwan wuxuuna sheegay inuu la jiro mar walba Yurub ayadoo laga baqayay in xukuumadda Sweden kale u janjeersato ayuu sheegay inuu taageerayo qorshe kasta oo midowga Yurub ay kala yihiin arrimahaas gobolka Tigreena dawladda Ethiopia ayaa ciidankeedu u galeen magaalooyinkii ugu badnaayay kooxdaasi ay haysatay dhinaca waqooyiga wadanka wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in dawladda ciidamadeedu ay korsi la wareegeen magaalooyin dhowr ciidamada dalka Ethiopia oo loo yaqaano ENDF oo loo soo gaabiyay Ethiopian National Defence Force ayaa qaatay magaalooyin dhowr ah oo ay kamid tahay magaalada Shire magaalada Alamata iyo magaalada Krim iyadoo dagaalo ba'an ay halkaas ay kula galeen kooxda ay wadamayntii buriyeen kooxda ayaa korsi waxay sheegeen inay ku hilbadireen magaalada laakiin se laga farmaroojiyay kooxda ayaa waxay sheegeen inay hadeerto ay harsan yihiin magaalooyinka Aksum Adwa iyo magaalada Mekelle oo dhamaantood laga baqayay inay gacanta dawladda ku dhacaan waxay ku eedeeyeen in ciidamada Eritrea ay gacan siinayeen dawladda Ra'iisul Abiy Ahmed hase yeeshee dawladda dalka Ethiopia ayaa diiday arrintaasi hay'adda la yiraahdo United Nations High Human Commissioner for Human Rights madaxda guud Volker Turk ayaa ku eedeeyay in ay dawladda Ethiopia isticmaalayso xoog dheeraad ah si kastaba ha noqotee afayeenka iyo ahna la taliyaha sare amniga qaranka dalka Ethiopia Ridwan Hussein ayaa cambaareeyay hadalkii ugu dambeeyay ka soo yeeray xogaha guud qaramada midoobay wuxuu ku tilmaamay in shiinadii malabka ay ku abuurteen meesha la kala tuuray wararka wacala dhinaca dunaasiyada dunida oo dhan dabashana qiimaha leh farqama qodna Mareykanka ayaa iyaguna si la yaab leh waxay uga jawaabeen hadalkii ka soo yeeray madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping ee ku aadanaa in ay waqtigu ka dhamaanayo dulqaadkana uu ku sii yaraanayo marka ay timaado Taiwan isagoo oo shirkii ugu dambeeyay uu ka qayb galo toddobaadkan ee ku saabsanaa ururkiisa talada haya uu u sheegay in la isku diyaariyo in go'aan ciidan lagu xalliyo Taiwan haddii la doono xogayaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Anthony Blinken oo ka hadlayay jaamacadda Stanford ayaa waxa uu sheegay inay og yihiin in Shiinaha fikirkiisii ahaa in 2027 la xaliyo qadiyadda ay bedeleen
taasoo ku tilmaamay mid halisteeda leh. Waxa uu sheegay inay cad tahay in madaxweynaha dalkaasi Xi Jinping uu bedelay fakarkiisa ku aadan waxa laga yeelayo. Isagoo Stanford ka hadlayay ayuu wuxuu sheegay inay arrintani tahay wuxuu ku tilmaamay dhibaato la joogteeyo isla markaana xalka hadeerta jira ka hor imaanaysa. Wuxuuna sheegay inay abuurayso xasrad aad u weyn oo ah mid aan laga soo kaba doonin haddii la doono. Si kastaba noqotee kuma uusan dhiiran inay difaaci doonaan Taiwan sida laga soo xigtay laba jeer hore madaxweynihiisa Joe Biden. Si kastaba noqotee madaxweyne Joe Biden ayaa ku celceliyay in dowladda Mareykanku ay xoog iyo xeelad ay kaga hortagi karto in la xayuubsado awoodda Taiwan, balse waxaa dadka qaarkood ay ku kala duwan yihiin aragtidaas iyada oo dowladda Mareykanka aysan jirin si ay ugu soo gamba karto inay ka qayb qaadato xasarad halkaasi ka dhacda maadaama Taiwan aysan dal madax bannaan ahayn oo aysan saxiixi karin heshiis difaac. kow talabaad Taiwan aysan ku jirin gaashaanbuurta NATO aysan dabxeertaasi hoosgelin. laba iyo saddexaad Taiwan aysan golaha qaramada midoobay aysan xubin ka ahayn wadan madax bannaan aan loo aqoonsanayn dunida oo dhan u aqoonsantay inay ka tirsan tahay Shiina loona arki karo ayaa la dagaal sokeeyay wax kasta dowladda Shiinuhu ay faragelin ku suubiso. wararka waxaana dhinaca diblomaasiyadda boqolkiiba 14 kor u kaca dhinaca shaqo abuurka ayaa laga soo sheegay dalka Saudi Arabia marka la eego ayaa lay quarterkan ama rubuc sanadkan taasoo ka dhigan ayaa la yiri inuu hogaaminayo caalamka oo dhan kor u kaca dhinaca shaqooyinka. sidoo kale waxaa la sheegay in wadamada ku jira ururka GCC oo ay Qatar ka mid tahay iyaguna kor u kacay kadib markii koobka adduunka dhaqdhaqaaqiisuna kor u sii qaaday shaqo abuurista iyo lacagta naqadka ay soo gelisay. arrintan ayaa lagu tilmaamay inay kor u sii qaadayso hanaanka dhinaca ayaa la dhisme iyo sidoo kale hanaanaha waaweyn ee ay sii wado dowladda boqortooyada Saudi Arabia oo baalmihii ugu dambeeyay doonaysa inay soo bandhigto qorshaheeda ballaaran. dhanka kalena magaalada London ayaa shalay toole lagu kala carray xafiiska ra'iisul wasaaraha Liz Truss kadib markii la sheegay in duleedka wadada marta Downing Street u dhow lagu sheegay gaar ahaan hallka loo yaqaan The Whitehall oo u dhaxeeya aqalka baarlamaanka iyo fagaaraha loo yaqaan Trafalgar Square in lagu arkay ayaa la yiri walxee qarxa oo suuragal ay tahay. waxaa la sheegay intaasi ay keentay in lagu kala carro dhismaha dowladda oo ku jira xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo dhowr wasaaradood oo ay ku jirto wasaaradda arrimaha dibadda iyo xafiiska golaha wasiiradu ay ku shiraan iyo wasaaradda difaaca. waxaana booliisku halkaasi square ka qabteen isla markaana ay hareereeyeen ugu dambeyntiina waxay sheegeen oo ku dhawaaqeen inaysan meesha ka jirin wax weyn iyagoo sheegay in waxa Whitehall lagu arkay uusan ahayn hawa yaraatee wax shaki leh. si kastaba noqotay arrimahan ayaa soo badanaya iyo bariyihii ugu dambeeyay wadamada caalamka ay hoos u dhacday weeraradii dhinaca argagixisanimo ee laga geysan jiray gaar ahaan kuwa reer galbeedka kadib markii reer galbeedku ay sheegeen inay ka adkaadeen ururadii ay ku eedeyn jireen inay ka dambeeyaan weerarada Al-Qaacida iyo dowladda Islaamka ISIS.